نبي عليه الصلاة والسلام نكان أفلقاتين أيو والله ليال ميل الله لما يشهد كورك تانيك هورتالا قارجيو إلا قارجيو لديلو أنا إلما هذا الريال وقف بنا آدنا ولا الكينا قلد وايقدع وكقوم مي وكشلاي قفك ولا الكا مسلمك حدو قلد كدع لما سي شيك لما وقت كلا دوان سومرياهي دين كستو دنيدان كانول آمنسناها لكن especially دين تان آدكو آمنسناها ودين تماسونيكا wuxuu aflagaadeeyay suubanaheena nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam mideed kale wuxuu aflagaadeeyay diinta islaamka mid saddexaadna hooyadiisa asal dhasho ayuu aflagaadeeyay marka ninkan ayaa fal xun ku dhaqaaqay marka culimada sida noo sheegay qofka nabi maxamed aflagaadeeyay aaya diinta islaamka waa ka baxay waa gal in la dilayna waa waajib suubanaheena maxamed صلى الله عليه وسلم نبينا شرفت بدن أيو أوقفي أيو عاي أسوأ سويلي بس جاز وعاي مركا نكان أيا ضدك أدونك ولا كعي هذا بوليس كا تركي أيا هذا نكان بعد قبل وجر أو وانتد واي دعوة كي معتي ضدك مشاعب كإسلام كا تركي جوا مركا نكان وإن دل لوفليا صوته وحكلا أو الدنيا أو سبحان وقال وقف مارتي دينتي عايين محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد شرفنا أيو أفلقادي مركا ما مركا وليس أو ضد أين كانوا كلا أو محمد صلى الله عليه وسلم وقفايا وطروا جوا أرني مركا نكان عيا حدنا مركا كل قفل أو دينتي إسلام كوبهاي وكوغالوي marka dadka dadweynaha islaamka meel walba ay joogaan ayaa arintan aad iyo aad uga qiirooday oo u balqaaday in ninkaasi aakhirka la soo qabo doono oo fagaaraha lagu dili doono afis magalo sida kitaabada ilaahay ku qorayeen qofka nabiga ayaa wax afisa ma jiraan sababtoo nabiga waa dhintay ma ku cafi karo hadaa waxba ka jegto marka qofka nabiga ayna waa gaal sida diinta islaamka waxa walba ku soo arurtay ninkan ayaa waxa soo xiyelaya naag oo qabo oo asaga ayu difaacayo ayu dadka waalidkiis la asaga diinta nabiga oo aanaya marka wiilkan ayaa arin aad iyo aad oo gaalnimo ku dhaqaaqay marka dadweynaha islaamka meelkaas ay joogaan waxaana ka codsan in ninkaas qalbiga laga naco warkiisa la sheegin dadka daawanaya oo muuqaalo oo soo dhigay ka dhaafaan ay daawashada ka dhaafaan dadka qaar ayaa Soomaalida dadka xun daawada ninkaas waxa ka codsan in daawashada laga dhaafo niyada iyo qalbiga laga naco waa ninkaas aad iyo aad xun awala naclatullaahi calayk ninkaas naclad ayaa ku dhacday diinta islaamka bari ayuu ka yahay oo ka baxay ninkaas oo gaaloobay maadaama suubanaheena maxamed sallallahu alayhi wasallam nabigeena sharafta badan aflagaada weyn u geysay dadka islaamka meel kasta jooga ka codsan in riboodka meel kasta oo gaarsiiyaan ay ninkaas gacanta ku soo dhigaa insha Allah